السلام عليكم. waxaan ka hadli doonaa muuqaal yar oo kooban oo nagu talagalnay cudurka coronavirus oo aan ku hadli doono 7 su'aalood iyo jawaabahooda. cudurka coronavirus oo loo yaqaan COVID-19 waa cudur ku dhaca neef-mareenka ama waxa loo yaqaan respiratory system oo ku dhacay dad ku nool 178 wadan adduunka gudihiisa. cudurkan coronavirus waa sida hargabka oo kale, waxay ka siman yihiin astaamaha waxaanay ku kala duwan yihiin fayraska keena. caabuqa coronavirus waxa keena gene virus cusub oo loo bixiyay COVID-19. asal ahaan cudurkan waxa la aaminsan yahay inuu xayawaanada ku dhici jiray kadibna dadka uu soo gudbay sidaasna ku faafay oo uu noqday cudur halistiisa leh. saynis yahanada ayaa tuhunsan inay u badan tahay in cudurka coronavirus uu ka soo farcamay suuq ku yaala magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. sidoo kale saraakiisha ururka caafimaadka ee WHO ayaa sheegtay inay u badan tahay in cudurkan uu ka dhashay fiidmeerta. sida laga soo xigtay hay'adda caafimaadka adduunka waxa la sheegaa cudurkan in lagu garan karo calaamadihiisa ugu caansan ay yihiin qufac, xumad iyo qandho, daal fara badan iyo sanka qofka cuncuna. sidoo kale waxa la sheegaa dadka uu xanuunkan ku dhaco qiyaastooda 80% inay noqdaan dad dareenkooda lumiya ama dhadhankooda, urtooda. sidoo kale waxa la sheegaa dadka xanuunkan soo wajaho inay la kulmaan xaalado aad iskaga fudud sida hargabka oo kale, hadhowna ay ku noqoto mid aad u adkaato. بسم الله. cudurka coronavirus ama sidoo kale loo yaqaan COVID-19 sidee baa looga hortagi karaa? hababka looga hortagi karaa cudurkan way fara badan tahay, laakiin inta ugu macquulsan qodobada la isla qaatay waxa ka mid ah in uu qofku kor u qaado guud ahaan nadaafadiisa oo uu badiyo faraxalka, sidoo kale uu isticmaalo dareeraha jeermis-dilaha ah, in uu gebi ahaanba isaga fogaado meelaha ay dadku isugu imanayaan, in uu iska daayo salaanta gacan qaadka ah. dad badan oo adduunka ka mid ah ayaa uu walwalgeliyay walaacna ku riday xanuunkan coronavirus, taasoo ay sabab u tahay iyagoon damaanad u haysan inuu ku dhici doono xanuunkan iyo in kale. sidoo kale qaaradda Afrika ilaa hadda waxa la xaqiijiyay in uu ku dhacay 4,000 oo qof oo qaaradda Afrika ku nool. hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay caddaysay oo ay sheegtay in xanuunka coronavirus uu si dhaqso ah u fidi karo. sidoo kale waxay sheegtay in 100 qof oo ku dhaca xanuunka coronavirus in 5 kamid ah ilaa 2 kamid ah ay u geeriyoon karaan xanuunkan. inkastoo dad fara badan uu ku dhaco adduunka hargab sida la wada ogsoonyahay xanuunada ay keenaan ilmaaragtida fayrasku badanaa ma lahan wax dawo ah, qaarkood ayaa waxay leeyihiin ka hortag sida talaalka. haddaba xanuunkan coronavirus COVID-19 ma lahan wax dawo cayiman ah, ma lahan ka hortag talaal. sidoo kale qofka xanuunkan uu ku dhaco waxyaabuhu kula tacaali karo waxaa ka mid ah qofka inuu xaaladiisa dejiyo, ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saarsado, iskuna xidho. sidoo kale qofku inuu la xiriiro xarun caafimaad oo xaaladiisa u gudbiyo. sidoo kale qofku inuu iska karantiilo bulshada uu markaas la nool yahay. sidoo kale qofku waa inuu qaataa cunto isku dheelitiran, biyo iyo cabitaan badan oo cabaa. waxyaabaha kale oo qofku iskula tacaali karo waxaa ka mid ah qofku waxa uu yeelanayaa qandho, sidoo kale wuxuu yeelanayaa murqo xanuun iyo calaamado kale oo badan. qofku waa inuu isticmaalaa qandho jabiyayaal sida paracetamolka oo kale. sidoo kale xanuunkan dadka qaba waxay yeeshaan neef naqasku inuu qaarkood ku dhago. haddaba qofku markuu naqasku ku dhago waa in la geeyo xarun caafimaad si loogu helo mashiinkii naqaska siinayay. haddaba dadka xanuunada kale la nool sida neefta oo kaleeto, sokorta oo kaleeto, kaliya xanuunka oo kaleeto waa in xaaladda xanuunadaasi la maareeyaa lana geeyo xarun caafimaad.
xalkeegu muxuu noqonayaa haddaba xanuunkan xalkiisu muxuu noqonayaa saynu ogsoonnahay incubation periodka ama xanuunkan inta uu kusoo ifbaxayo waa muddo 2 cisho ilaa 14 cisho ah sidoo kale jaamacadaha Chama iyo Hubei oo ku taala China waxay diiwaan geliyeen cases badan oo 1300 gaaraya oo incubation periodkooda ama saan soo sheegnay ifafaalada xanuunkani uu kusoo baxayo 19 cisho ilaa 27 cisho saynu ogsoonnahay aan ka arkayna halkaana waa muddo aad u badan oo ka badan intii 14 cisho la inoo sheegay sidaa daraadeed iska ilaali xanuunkan gurigaaga joog xanuunkan ma leh wax talaal ah mana laha wax daawo ah culimadu way ku guda jiraan in way baarayaan xanuunkan in ay helaan daawadiisa haddii aad tahay qof ka daaweyn da'da 50 jirka waxa aad khatar ugu jirtaa xanuunkan inuu ku halligo sidoo kale haddii aad tahay qof xanuunada waaweyn leh sida wadna xanuunka beer xanuunka kaliya xanuunka macaanka iyo dhiig karka WHO waxa ay kugula talinaysaa in aad diyaarsato daawooyinka aad cuni lahayd muddo bil ka badan haddii aad tahay wiil dhalinyaro ah xanuunkan waxaad ugu jirtaa khatar lamid ah khatarta ay ugu jiraan dadka da'da waaweyn leh laakiin waxaad ugu jirtaa khatar sida dadka da'da waaweyn ay ugu jiraan khatarta laakiin waxa kala hooseeyo reed dadka ay isku dhaxeeya ama dhimashada inta isku dhaxaysa reedka haddii xanuunkan ku haleelo la qadar Allah waxa lagu talinayaa in aanad qaadan daawooyinka malaariyada iska aanad u qaadan adigoo gurigaaga jooga ama dhakhtarkaba jooga ee aad la tashato dhakhtarkaaga sidoo kale waxa lagu talinayaa in aanad cunin daawada loo yaqaano ibuprofen oo ka tirsan NSAIDska ama qandhajibiyaasha taasoo ay joojisay dawladda Faransiisku dawladda Ingiriisku ama UK-ga saan naqaano ayadna kula talisay dadkayga inta ay helayaan paracetamol aanay cunin daawada ibuprofenta haddii ay rabaan in ay cunaanna ay kala tashadaan dhakhtarkooda xanuunkan sida kaliya ee lagu joojin karaa waxa weeyaan kaliya in aad gurigaaga joogto haddii aad tahay wiil dhalinyaro ah saan soo sheegnay xanuunkan uu kugu dhacayaa kaliya waxa hooseeyo oo reed dadka ama inta wax badan oo inta aad ku badbaadi karayso percentage aad ku badbaadayso sidaa daraadeed niyada khayr u sheega guriyihiina jooga dhalinyaradana si gaar ah waxa lagu talinayaa in ay waalidiintood u noqon sababtii ay ku tagi lahaayeen oo ay iska ilaaliyaan xanuunkan inta ay iska ilaalin karaan fadlan gurigaaga wacyigelinta iyo talooyinka guud minhadlayaasha caafimaadku ay bixinayaan sida bahsan ballaaran bulshada ay u gaarsiiyeen ugama gola inay idinku abuuraan walbahaar iyo cabsi balse waxa la doonayaa in taxadarka iyo ka hortagga xanuunkani la xoojiyo sidoo kale dadka mihnadan ka shaqeeya ee faraha ku haya waxay bulsho weynta kula talinayaan inay ka dheeraadaan kana fogaadaan cabsida waayo cabsidu waxay keenaysaa inay wiiqdo ay hoos u rido sidoo kale ay qaariso ka hortagga iyo iska caabinta naftaadu ay u leedahay xanuunkani marka mar walba xanuunku waxa uu ku xiran yahay oo ku salaysan yahay host susceptibility-ga yacni qofku sidee uu ugu nugul yahay xanuunkani inuu ku dhaco waxa laga yaabaa adigoo 12 jir ah oo aaminsan inuu xanuunkani kugu dhacayn laakiin habdhiska difaaca jirkaagu uu aad u wiiqmay inta aad ka dheeraan karayso in aad cabsida ka dheeraato sidoo kale Ilaahay aad isku xidho asbaabahana aad qaadato oo iska ilaaliso si walba oo xanuunkan uu kugu soo gudbi karo gurigaaga joog oo badbaadi 100 ruux iyo ka badan